السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أخيرت رجع أكاديمي iyo cid ula fudhigan soo gaari doonaba waan idin wada salaamayaa. Waxaan noo socon doonaa imtixaanaheena ku saabsanaa IQ option casharkiisii afraad oo noqon doona erey bixinta suuqa. Haddaba inaga isku dayi doona inaynu erey bixinta amba ereyada ugu badan ee suuqa laga isticmaalo amba kuwa ugu waaweynba inaynu soo qaadano aynu qeexno waxay u taagan yihiin. maadaama aynu ogsoonahay erey bixin macnaheedu guud inay tahay meel walba adduunka markaad wadan gobol markaad tegaysid iska mid ah laba wadanba wadan isku mid ah hadda laba gobol oo kamid ah ayaa haddana kala erey bixin noqon karaya oo gobolkan ereyada qaar sida looga yaqaano yaan gobolkan kale looga aqoonin. Marka wax iska caamo oo adduunka oo dhan ka jirta ama ka dhacdaba erey bixin kala duwan inay meel walba erey bixin gaar ah inay leedahay. Marka platformkan IQ option erey bixin u gaar ah buu leeyahay. Marka kuwaas bin insha Allah taala isku dayi doonaa inaan dul istaagno ku ugu muhiimsan. Marka erey bixinta ugu horeysa waxaanu ka bilaabaynaa isla IQ option. marka IQ muxuu taagan yahay? IQ kelmadda IQ waxa loo soo gaabiyay intelligence quotient taasoo macnaheedu yahay maskax badnaana. in badan baad maqashay IQ qofkaas uu sareeya. waxa IQ loo soo gaabiyay waxa weeyaan intelligence quotient oo ah maskax badnaana. waxa uu taagan tahay maskax badnaan baa loo soo gaabiyay. kelmadda option iyaduna waxa weeyaan kelmaddan waxa u taagan tahay ikhtiyaar ama xorriyad doorasho. san ogsoonahay haddii lagu raado option baa lagu siiyay waxa ka dhigan tahay adiga ayaaba ikhtiyaarka iskale optionka waxa doorashada adiga iskale cid wixii lagu siyaa fara badnaadaan ha yaraadan laakiin doorashada iskale. maanta haddii lagu raado waxa lagu siiyay option 10 qof inaad kala doortid option waxa ka dhigan tahay 10 ka qof waa selection option waxa ka dhigan tahay adaa ka doonayso dooranaya cid gacanta labaad ku soo dhexgelisa ma jirto ee ka dhigan tahay marka waa doorasho xorriyad doorasho option kamid la raado u taagan tahay. kelmadda iyaduna binary waxa laga soo qaatay kelmaddan technology taasoo loo isticmaalo marka la joogo caalamka kombiyuutarka. kelmaddan binary waxa laga isticmaalaa caalamka technology gaar ahaan kombiyuutarada iyo waxa loo isticmaalayo qalabka electronic-da. waayo kombiyuutarku ma fahmo xarafaantan inuu bilaadanku fahmo ABCD ma fahmo. wuxuu fahmaa waxa la yaqaan luqadiisa waxa loo yaqaanaa binary baa loo yaqaanaa oo ah 1 iyo 0 uu fahmaa. marka kelmaddan binary waxa ka soo qaateen qoladan platformkan IQ option waxa ka soo qaateen kelmaddan ka soo drive gareeyay waa teknolojiyada iyo caalamka kombiyuutarka waxa ka soo drive gareeyeen oo kelmaddan asalkeedii hore waxa ay u taagneed 1 iyo 0 marka kelmaddan xagaas laga soo drive gareeyay. ereyga correction wareerka suuqa weeyaan. suuq waxa jira markuu dhaqaaq sameeyo wuxuu galaa jahwareer buu galaa. dhaqaaq weyn markuu sameeyo jahwareer buu galaa. marka jahwareerku galo correction baa la dhahdaa. yani kelmaddaas kelmad kale kula noqon waa easy simplicity weeyaan. waxa weeyaan jahwareer waxa ka koobnaato kaliya structure. kelmaddan structure waa qaab dhismeedka suuqa samaysto. kelmaddan haddaad maqashid structure-ka suuqa market structure waxa soo dhan haddaad maqashid wax weyn structure waa haddaad maqashid waa qaab dhismeedka suuqa weeyaan. wax walba qaab dhismeed buu leeyahay. bilaadanku qaab dhismeed buu leeyahay. guriyaashu qaab dhismeed bay leeyihiin. marka structure waxa weeyaan qaab dhismeedka suuqa weeyaan. ereyga uptrade haddaad maqashid in badan baad maqli doontaaba iyaguna wax kale kula noqon. uptrade waxa weeyaan waa jiha kore weeyaan amba jiha sare weeyaan. waa bilmisaal suuq kor u socda weeyaan oo strong buy oo kor suuqa loo wado kale yaaba la raada uptrade dad maqsho waa jiha sare amba jihada sare suuq markuu u socdo la uptrade weeyaan. suuqaas shada maqshiisina waa jiha kore oo candle bullish baa sameysmay suuqaas bullish weeyaan haddaad maqshid mar walba waxa weeyaan jiha kore weeyaan iyana wax kale kula noqona. simplicity loo macnayn karayo waxa weeyaan bullish waa kor weeyaan jiha kore weeyaan isaguna. waxaad kaloo maqli doontaa ereyga downtrade iyana kala noqon isaguna kelmad kale waxa weeyaan jiha hoose weeyaan. jiha hoose suuq marka uu jiha hoose u socdo uu hoos u daadanaya la yiraahdaa downtrade weeyaan. suuqaas jiha hoose u socda waa downtrade weeyaan. bearish iyaduna laftarkeeduna waa jiha hoose oo iyana wax kale kala noqon. ereygan patterns ama pattern waxa weeyaan nashqada suuqa. wax suuq wuxuu sameeyaa shaqooyin fara badan buu sameeyaa
research academy ahaan shaqado iyo batamis aanu ku trade gareyna baa jira oo markay noo sameysmaan aanu suuqa u galno sal markay noo sameysmaan suuqa u galno buy marka waxay ku sahlayaan batamisku suuqa jahadiisa iyo nashqada suuqa inay ka caawiso iyaga ku salayaan batamisna waxa aad soo koobaysaa waa nashqada suuq sameeyo midda momentum in badan baadina maqli doonta momentum waxa weeyaan xamaasada suuqa marka ay kaxsan tahay yacni marka uu suuqu uu ku socdo xoogan marka uu socdo la momentum ama xamaasadiisu marka ay kaxsan tahay baan oran kareena intaasaynu kusoo gabagabin doonaa casharkeeni maanta ee ahaa erebixinta suuqan intaynu casharkan lamida ku kulmayno waxaan iskaga tegnaa dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh